Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal halkan waa xarunta radio gado ee degmada Doolo Soomaaliya mowjada 89.1 MHz ku soo dhawaada warka raadiyaha oo idin hayo waxaan idin socodsiin doono anigoo ah Cabdi Nuur Cismaan Cabdi qodobada warka inta uu socdo ku dhageysan doontaan ayaa waxa ka mid ah isbedelo dhanka ganacsiga ah oo laga dareemayo degmada Doolo Soomaaliya dawladda Soomaaliya iyo Sacuudiga oo isla ogolaaday in xayiraadda laga qaado markab xoolo siday oo lagu xanibay dekedda Jidda kusimaha taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo darajooyin u xiray saraakiil caafimaad oo dhawaan ku soo biiray ciidanka xoogga dalka wasiirka diinta iyo cuqaafta dawladda Soomaaliya oo sagootiyay dufcadii koowaad ee ujeedada Soomaaliya intaasi waxay ahaayeen wararka gudaha haatan ku soo dhawaada akhbaaraadka kale oo aan kaga hayno caalamka dawladda dalkaasi Iiraan ayaa sheegtay in gacanta ay ku dhigeen markab si qarsoodi ah u siday shidaal muhaajiriin ku geeriyootay shil ka dhacay dalka Turkiga qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warka inta uu socdo aan ku bilowna isbedelo dhanka ganacsiga ah oo laga dareemayo degmada Doolo Soomaaliya war amuurtaasi ku saabsan waxa inoo hayo Cabdullaahi Maxamed Xamuud ganacsatada degmada Doolo Soomaaliya ayaa ku howlan si ay u kobcin lahaayeen ganacsigooda ayagoo inta badan ganacsigooda ugu yimaado magaalada madaxda Muqdisho dhanka kale ganacsatada degmada Doolo Soomaaliya ayaa ugu yimaado ganacsigooda qaar sida shamiindada barandhada toonta bunka iyo waxyaabo aad u badan ee gudaha Itoobiya ugu yimaada sidoo kale ganacsatada degmada Doolo Soomaaliya ayaa iyagana ganacsigooda u gudbiya gudaha dalka Itoobiya ganacsatada ayaa inta badan soo wajahda hoos u dhac dhanka ganacsiga balse maahan kuwa ka quusto ganacsiga dhanka kale dawladda Soomaaliya iyo Sacuudiga isla ogolaaday in xayiraadda laga qaado markab xoolo siday oo lagu xanibay dekedda Jidda Cabdifataax Abuukar Cabdilla ayaa warkaas inoo hayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Maadi Maxamed Guleed Qadar oo xalay shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka hadlay markab 20,000 oo ari siday oo dekedda Barbara ka sharaacday kuna xayirna dekedda magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga laga soo bilaabo 12 Julaay ee sanadkani mudane Maadi Maxamed Guleed Qadar ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay dawladda Sacuudiga xiriir kala sameysay markabka xoolaha siday hase yeeshee ay cadaatay in markabka loo xayiray in uusan soo buuxin heshiisyadii dhoofinta xoolaha ee labada dawladood horay u kala saxiixdeen ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay Sacuudiga kala hadashay in markabkan arrintiisa si gaar ah loo hadiyo oo aan lagu xirin heshiisyadii hore loo galay si looga daneeyo ganacsatada Soomaaliyeed hase yeeshee heshiisyadii hore ee labada dawladood wada galeen ay sidoodii ahaadaan oo loo wada ilaaliyo dawladda Sacuudiga ayaa kadib codsiga dawladda Soomaaliya ogolaatay in markabka ariga laga dejiyo si looga iibiyo suuqyada dalka Sacuudiga waxaana xalay markabkii laga dejiyay dhammaan arigii saarnaa kusimaha taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo darajooyin u xiray saraakiil caafimaad kuwaasi oo dhawaan ku biiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliya mar kale waxa inoo koobayo Cabdullaahi Maxamed Xamuud kusimaha taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeye Gaas Cabdi Xasan Maxamed ayaa shalay garaadisiiyay 83 xubnood oo isugu jira dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad
dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee la siiyey darajooyinka sargaalnimo ayaa waxay dhowaan kusoo biireen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. taliyaha ciidanka dhulka Sareeya Guuto Odowaa Yuusuf Raagi ayaa u sheegay in dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka inay aqoontooda wax ugu qabtaan ciidanka. kusimaha taliyaha ciidanka xoogga dalka ahna taliye ku-xigeenka ciidanka Sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed ayaa kula dardaarmay xubnaha darajada la siiyey in ay u diyaar garoobaan shaqo adag maadaama uu ciidanka xoogga dalka uu ku jiro dagaal adag. bishii December ee sanadkii tagay ayay ahayd markii ugu horeysay ay si rasmi ah u shaqo bilaabaan kooxdan ku kooban dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad. dhageystayaal waxaad nagala socotaan Radio Gado mowjada 89.1 MHz. wasiirka diinta iyo cuqaafta dowladda Soomaaliya oo sagootiyay dafcadii koowaad ee ujeedada Soomaaliya Maxamed Maxamuud Cabdiraxmaan ayaa warkaasi inoo hayo. wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed Xasan ayaa shalay galab sagootiyay dafcadii koowaad ee xujayda Soomaaliya. mudane Sheekh Nuur ayaa alla uga mahadceliyay sida ay hawsha ugu fududaatay wuxuuna inta raaciyay in magaalada Maka xujayda Soomaaliyeed ugu sii horeeyeen shaqaalo ka tirsan wasaaradda kuwaas oo ka saacidi doono wax kasta oo ay u baahan yihiin. waxaa maanta daahfurmay nidaamka fiiso bixinta xajka anaga oo isla galabtan sagootinay dafcadii koowaad ee xujayda sanadkan 1440 sanadka islaamka milaadiga islaamka. dhanka kale 2019 dadweynaha ayuu yiri wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xildhibaan Sheekh Nuur Maxamed Xasan. wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliya ayaa sidoo kale shalay daahfurtay nidaamka fiiso bixinta xajka. haatan qodobadii caalamka dowladda dalkaasi Iiraan ayaa sheegtay in gacanta ay ku dhigeen markab si qarsoodi ah u siday shidaal. telefishinka dowladda Iiraan waxa uu maanta sheegay inay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan gacanta ku dhigeen markab shisheeye oo booyadla ah kaasi oo la sheegay inuu tahriibinayay shidaal. telefishinka Iiraan ma uusan sheegin dalka laga leeyahay markabka ay qabteen ama dalka ay u dhasheen badbaaxintii la socotay markabkaasi kaasi oo la sheegay inuu tahriibinayay shidaal. markabkaasi oo ay la socdeen 12 shaqaale shisheeye ah waxa ku rarnaa 1 milyan oo litir oo shidaal ah. dadka Iiraaniyiinta ee wax tahriibiye ayaa la sheegay inay ka dambeeyeen shidaalka uu waday markabkaasi oo ku sii jeeday dal shisheeye ah oo aan la carabaabin. dhinaca kale markabka oo ay Iiraaniyiinta qabteen ayaa waxa u muuqday markab laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta kaasi oo xadii la soo dhaafay la waayay halka uu ku dambeeyay. iminkana Turkiga muhaajiriin ku geeriyootay shil ka dhacay dalkaasi Turkiga. gaari ay la socdeen muhaajiriin ayaa la sheegay inuu saakeeta ku qalmay bariga dalkaasi waxaana soo baxay warar kala duwan oo ku aadan tirada ku geeriyootay shilkaasi. wakaaladda wararka u faafisa dalka Turkiga ee Andalus News Agency ayaa waxay baahisay in uu yaraan 4 muhaajiriin ku geeriyootay shilkaasi balse telefishinka madaxa banaan ee NTV waxa uu tirada dhimashadaasi ku sheegay 14 qof. gudoomiyaha gobolka uu shilka ka dhacay Maxamed Aamin Balmes waxa uu tilmaamay in 15 qof oo caruur u badan ay ku jireen ayna ku geeriyoodeen shilkaasi ka dhacay waddo weyn u dhow degmada Ozal ee ku taalo xuduudka Turkiga ay la wadaagaan Iiraan. goobjoogayaal ayaa sheegay inuu darwalka xakameyn kari waayay gaariga uu si xawli ah u waday taasi oo keentay inuu gaariga ku dhaco kanaal ku yaalo wadada agteeda. wali lama shaacinin dalalka ay u dhasheen muhaajiriinta geeriyootay iyo kuwa ku dhaawacmay shilkaasi ka dhacay bariga Turkiga. bishii la soo dhaafay 10 muhaajiriin ah ayaa ku geeriyootay gaari ay la socdeen 10 muhaajiriin ah oo ku dhacay dhismo ganacsi oo ku yaalo waqooyi galbeed dalka Turkiga kuna dhow xuduudka dalka Giriiga. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkii aad kala socoteen Radio Gado codka gobolka Gedo. dhageyste haddii warka uu ku dhaafay waxaad dib ula socon kartaa barta Facebook ama YouTube aan ku leenahay ee Radio Gado codka gobolka Gedo. waxaana warka inta uu socday la socodsiinayay aniga oo Cabdinuur Ismaan Cabdi. dhanka farsamadana waa Maxamed Macal Aadan. intaan warka xigaan ku kulmi doono waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.